kulan looga soo horjeeday dhismaha baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Warkani waxa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyahayaga Saafi Cabdicasiis Cali. kulankan maanta Muqdisho ay ku yeesheen qaar kamid ah waxgaradka xildhibaanada siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada ka soo jeeda deegaanada gobolada Jubbooyinka iyo Gado ayay kaga hadleen dhismaha xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubba oo ay ku tilmaameen inuusan ahayn mid sharci ah shakhsiyaad gaar ah ay sameysteen. ugu horeen waxa halkaas lagu soo bandhigay war-saxaafadeed ka koobnaa dhowr qodob oo marka hore lagu cambaareeyay dariiqa loo maray dhismaha baarlamaanka loo dhisay maamulka Jubba kaas oo war-saxaafadeedka lagu sheegay inaysan jirin baarlamaan la isku raacsan yahay oo loo dhisay deegaanada gobolada Jubbooyinka iyo Gado. waxaan si cad u sheegaynaa in ayaan magaalada Kismaayo ka jirin maamul iyo kala dambeyn isla markaana ayaan jirin wax ay ku midaysan yihiin bulshada goboladaas Gado, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. waxa meesha ka jira waa koox uu hogaamiye Axmed Madoobe oo shacbiga kula dhaqanta dil, kufsi, dhac, barakicin joogta taas oo wiiqday noloshii iyo jiritaankii xornimadii qofka waxa dhacay xadgudubyo abaabulan oo maamulka Axmed Madoobe ka dambeeyo oo iyagu toos ay u fuliyaan sida aynu wada ognahay xubinta baarlamaanka waxa ay matashaa wakiilna ka tahay dadweynaha waana inay noqotaa mid hogaamiyaasha dhaqanka iyo dadweynaha matalaya soo xulaan ama dadweynuhu soo doorto si toos ah ay u soo doortaan. haddaba waxaan halkan si cad ugu sheegaynaa Axmed Madoobe iyo kooxdiisu baarlamaanka waxa ay ugu yeereen inaysan ku imaan labada hab ee la yaqaan soo xilida iyo doorashada inaysan midna ku imaan ee ay tahay waxa iyagu qaybsadeen kadibna ay dad iska soo magacaawdeen. sidaa darteed tani waxay inoo cadaynaysaa in waxa Axmed Madoobe iyo kooxdiisu ay doodoobayaan aysan ahayn wax shacabka deegaamadaas sameysteen aysan u dhamayn. ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ee ku hawlan arrimaha Soomaaliya in aan lagu maran habaabin lana aqoonsan beenta ay doodoobayaan Axmed Madoobe iyo kooxdiisu oo ay ugu yeerayaan baarlamaan kaasoo aan ahayn baarlamaan ay dadku matala iyaguna aysan sharciyad u lahayn inay soo qortaan. sidoo kale qaar kamid ah waxgaradka oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay qaadato doorkeeda ku aadan sixidda qaladaadka jira. haddana waxaan wixii laga qaban karo bal loo fadhiisto yaa wax lagala tashaday innaba ha yaraatee ayayna jirin. bilmatalan anagu sadeen waxaanu ahayn intaas oo diyaaradood baanu ahayn waanu soo degnay cid aan la kulannay ayadoo ina jirin cid aan tala la wadaagnay ayadoo ina jirin yaa waxaa la yiri xildhibaano yaa la qabtay oo yaa loo qabtay tiradooda iyo qaabkooda midnana waxaanu adduunka ku smoogoliyaan ka wada hadalnay ma jiro. maanta mujtamaceena aan codkooda halkan ku gudbinaan u soo fariisanay international community-ga dawladda Soomaaliyeed iyo urur goboleedka iyo intabana waxaan la socodsiinaynaa waxa meeshaasi ka jiray waxa loo dhan yahay ama tala loo dhan yahay wax maamul ah oo ku samaysan inuusan ka jirin waxa maanta lagu talaabsanayo oo ka socdaayna sidii marka hore xadgudubkii marka hore maamulka lagu maquunsaday oo jabhadnimo lagu sameystay wax la mid ah inay wali u sii socoto maalin walbana maalinka ku xigta inuu isii hoyanayo meesha shal uu ku bariyay meel ka sii daran inuu isii hoyanayo. waxa dhawaan la dhameystiray baarlamaanka uu yeeshay maamulka Jubba ee madaxweynaha ka yahay Axmed Islaam Axmed Madoobe kaasoo dhawaanahanba lagu howlanaa dhismihiisa. Saafi Cabdicasiis Cali, Somali Channel, Muqdisho.